بسم الله عيد مبارك ما أنتوا حجونا UAE waxaan la joogaa dadkayga waxaan la qaadanaynaa farxadda maalinta ciid ah Malaysia waxa ku nool Soomaali badan adaan qiyaaseen 8,000 ama ka badan dadka jooga waxaan jeclahay markaan mikrofoonka dhaxmar aan weydiiyo dareenkooda sida dareemayaan maalinta ciidda maxay ugu duwan tahay ciidda inta ku ciidayaan ciid dalku ciidayaan saan u aragno like the moon we say we shine together say Eid Mubarak this blessed day is here won't last forever say Eid Mubarak it's all love Eid Mubarak it's all Eid Mubarak Eid Mubarak كل عام وأنتم بخير قوبتنا نكون سجننا وجامعة الإسلامك قومباك بكتالا وحافظ صومالي أيوب بدن تايا halka waxa jooga Maxamuud oo kamid ah dhalinyarada jaamacadda Malaysia jaamacadda ku yaala wax ka barta horta marka waad waxa leeyahay ciid mubarak kullu caam wa antum bikhair dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee joogta wadanka Malaysia kale horta Malaysia iyo wadankii waxyaabo badan baa u dhaxeeyo farqiyo badan bay leeyihiin inkastoo laakiin nimka Soomaali badan xaggan xaafadada Soomaalidu badan yahay tahay haddana waxa weeyaan waa waxyaabo badan oo ay ku kala yihiin ku kala duwan yihiin waxyaabo iska mid yihiin oo ay jiraan ciid mubarak ciid wanaagsan ciid wadankii aan ku ciidi jirno wadankii markaan joognay iyo ciid qurbaha maxay ku kala duwan yihiin wallahi wax badan ciid wadankaaga markaan joogtid dhadhan leedahay family booqatay leedahay asxaaba leedahay يعني ما لبدنا وباشال كتالة. ما نجوق هذه جرا كميتان. أديات. ما شاء الله هذا أنا هذه جرا مكوبي. dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia waxa leeyahay hambalyo halkasta ay joogaan maanta waa maalin ciid waaye waxaan ummadda la qaybsanaynaa farxadda maalinta ciidda waa mid kamid ah dhalinyarada ku tukatay masaajidka islaamka ee UAE-da waxa uu ka warbixinayaa dib xasuustiisii iyo ciidihii Soomaaliya iyo qaabkii uu xaqal ciidka u dooran jiray iyo nidaamku qaabku ahaan jiray maalintii ugu darneyd ee uu xaqal ciid doonto Axmed Abshifa su'aashu waa su'aal yara adag laakiin kulay yaraanteedii wax badan saas uga xasuusto kulay laakiin waxaan xasuustaa dadkayga waaweyn iyo ehelada iyo qaraabada inaanu ka qaadan jiray xaqal ciid si aanu ugu gadano waxyaabo marka anaga muhiimka noo ah munaasabada ciida ciid al-fitr awgeed waxaan halkaan hambalyo la wadaagayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacab weynaha ku nool wadanka Malaysia waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu gaarsiiyo ciidan ciidada kala barwaaqo bashbash iyo horumar iyo caafimaad ka waran xaaladaada waliyo dareenkaaga guud ee ciida ku sugan gaar ahaan khaasatan farqiga u dhaxeeya ciida wadankeena iyo ciida wadankan talo maxaa isbedelay aad ku aragtaa ama maxaa farqiga u dhaxeeya wallahi ciida wadankeena iyo ciidan farqi badan u dhaxeeya ciidan waxa la ciidaysaa dad fara badan kala duwan kala wadana kala dhaqan ah ciida wadankeena dad yaani waxaanu nahay Soomaali ah hal dhaqan iyo hal kala jarlah marka yaani waa dareemi kartaa farqiga inta u dhaxeeya marka ma sha Allah waan ku faraxsanahay inaan ku ciidiyo ciidan wadankan ahayn maxaa la yiraahdaa inkastoo aanan la ciidin wadankeeni ciid mubarak ayaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair intaan ka cayso man midhan dharkayga ciidda shidana Soomaan xidhan waa muun salaadu ciidiye Soomaan tukan yasgaadheba wali mana cambaabur cunay shish kadib waxaan qaadaa caruuranu dhibaa kish haqal ciidka ururiyaan waxaan saarnaa mis intaanu baahiyaan kadib ugu daraa hees markaasaan ku daadiyaa dariiqa ku heesan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair waxyaabaha cajiibka ee meeshan Malaysia inta badan lagu arkaa waa goobaha cunnada dadka oo suuqa ku tiirsan oo aan jirin meel inta badan sidii wadankii oo kale guryaha wax laga cunaa in aad banaanka wax ka cunto saddex casho oo kamid ah ciidda waxa ay noqotaa meelaha Malaysia waliba Kuala Lumpur caasimadu meel meelaysada wax ka cunto waxyaabaha qariibka ah bay kamid ka tahay oo ay Malaysia sanadka dhan kaligeed ay ku koobnaato waxa suurtagal ah mararka qaybtooda ee kale afarta subaxnimo hadaa soo dugto ama shanta inaad la kulanto in aad yaani mataqaan hesho meerado furan oo aadan caalamka Australia iyo Mareykanka oo kale aadan ka helin waxyaabaha cajiibka ah ee wadankan uu leeyahay waxa kale oo kamidka in ay dib u booqdaan familkooda ay tahay marka kaliya ee ay sarkaan familiyadu waxa laga yaabaa ugu ama walaalkii oo aanu 10 sano arag
oo gobol kale jooga inuu markaa booqdo waxa kale oo ay aad ugu fiican yihiin waa markaa waxay sameeyaan oo aan Soomaaliya ka jirin una baahan in la dhiirigeliyo in ay furaan meherado iyo meelo dadku ay ijtimaaciyaadka iyo kulamada ay ku badiyaan dadku ay isku xoga wareystaan isku saamaxaan kuna sheekaystaan waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay cajiibka ku tahay waddanka Malaysia oo runtii ay yaani mataqaanaa u baahan yihiin Soomaalidu inay wax uga bartaan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kull caam wa antum bikhair waxaan halkan ugu hambalyeynaya ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan farxadda ciida awgeed waxaan leeyahay hambalyo ku ciida caafimaad tan ciidan ciideeda kalena ilaahay nabad iyo naxariis iyo barwaaqo iyo farxad iyo horumar ilaahay nagu gaarsiiyo ciid wanaagsan soo dhawaada dhamaantiin bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciid wanaagsan ciid mubaarak maanta alxamdulillaah waa yawmul farax yawmul ciid ilaahay naga aqbalo inta soo soona sodonkeena bari maqbuul allah nooga dhigo dareenkeena aad u kacsan inkastoo ay ka qurux badan tahay inaa wadankeena ku ciidno oo ka dareen fiican yahay hadana islaamnimada waxay ku jirtaa waqti walba oo xilliga camal la gaaro dareenka qofka islaamka inuu kaco waxaan leenahay soonkeena salaadeena maqbuul allah ka dhigo insha Allah intii barjaysa maanta aragad cid wow meesha ku jirana ma bale daaqad wow farxadu way jirtaa ee barnaamijkiina khaldane ka baxa gurigoon ugu kala yaxirada ciida cad cidi ma dhicin barnaamij ma dhammaan isdiyaariniya waxaan ku wadaa meel aad ogeyn dhalinta meesha joogtana caawa balwad lahayn waciido waxa jooga habeenkan haween waan la socdaa waxa meesha ka buuxa kibrani weyn maba ogo inaan nahay ana ku cawandi weyn hasa yeeshee maanta uma baahnin dambi weyn bismillaahir rahmaanir rahiim ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta meel kasto ay adduunka ka joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr ummadda Soomaali dhammaan meel walba ay dunida ka joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan horta maadaama qurba aan joogno iyo markii dalkaaga tahay laba mid waay dalkaaga markaa joogto waalidkaaga walaalahaaga walaa kan oo masaajidka adimaa imaamka xataa iyo kan qudbada aqraxta Soomaali leeyahay meeshan ajniba inta ka maray meel isku dareen ma noqon karabo ma fahamtay albaabka gashay walaalka ka soo baxay banaanka soo baxda ka soo baxay dad kugu luuqada dad kugu jinsiyada dad ay wax walba farxad markay laba farxad kala noqonayaan farxad dadkaaga iyo farxad banaanka noqonay markii muhiimsan tan banaanka muhiimsan farxadda marka waran dareenkaaga maanta ciid ku aadan dareenkayga maanta aad u yaani u faraxsan dareenkayga aad u faraxsan waxa iga sii fiicnaa lahayd maanta dalkayga aan joogi lahaa